letter waraaq ama letter writing sida waraaqda loo qoro. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to English with Susman official channel. Letter waraaq ama letter writing sida waraaqda loo qoro. Read akhri the letter warqadda and answer kana jawaab question su'aalaha. Mar walba oo warqadda la qoro dhinaca midig ee geeska warqadda waxaa lagu qoraa meesha aad ka soo qoraysid sida Magali boarding school, PO box 559 whatever waxay tahay PO boxkaaga. haddana meesha aad joogtay Imbali bishii 9 June 2024 2023. Okay. Dear brother Ali, walaalkayga qaaliga oo Caliyo. Dear brother Ali, walaalkayga qaaliga oo Cali. I'm happy waan ku faraxsanahay to write inaan kuu soo qoro this letter warqadani to you adiga. I would like waxaan jeclaan lahaa to thank you inaan kaaga mahadceliyo for the letter warqadda you sent aad soo dirtay on my 10th birthday dhalashadaydii 10aad last month bishii hore. I did not reply in time waqti kuma aanan soo jawaabin. I hope waxaan rajaynayaa you will excuse me inaad ii cudur daari doonto. Life at school nolosha iskuulka is very good aad bay wanaagsan tahay. Our school kanaga has wuxuu leeyahay electric power koronto. When it was fixed marka la xiray we felt waxaanu dareennay very excited si aad u farxad badan and danced all night habeenkii oo dhan waa qoob ciyaaraynay. The compound deerka islit wuu shidan yahay waa ilays wuu iftiimayaa. So we feel waxaanu dareennaa very happy farxad aad ah and safe iyo badqab ama badbaado. We are not worried kama walwalsani of the dark mugdiga when crossing markaynu gudbayno ama u goynayno from the classrooms fasalada to the dormitories iyo meelaha aan jiifano ama qololka jiifka. We have our preps waxaanu yeelanaa shaqadeena guri ama shaqooyinka ee ka baxsan fasalada till ilaa laga gaarayo 10 p.m. afarta habeenimo. Then kadib we go back to waxaanu ku laabanaa the dormitory qololkii jiifka to sleep si aan u seexano. Our teachers macallimiinteena are very kind waa kuwa aad u naxariis badan. They teach us well si fiican bay wax noo baraan. They always had iyo jeerna tell us waxay noo sheegaan to work hard si adag inaan u shaqeyno in class markaan galaaska ku jirno. My best subject maadadeyda ugu wanaagsan is waxa weeye science. I would like waxaan jeclahay ama jeclaan lahaa to become inaan noqdo doctor when I grow up markaan barbaaro ama aan koro. I would like waxaan jeclaan lahaa to end inaan ku dhameeyo by advising you anigoo kuula talinayo ama kugu waaninayo to work hard inaad si adag u shaqeyso so that sida our dad and mom hooyo abo take you ay ku geeyaan to a good boarding school boarding oo fiican like our sida kaanagoo kale. Goodbye nabadgelyo. Your sister walaasha Fatima ayaa soo qortay warqadda asaga. Question is su'aala ayaa la socda marka. Who wrote the letter? yaa qoray warqadda. Who wrote the letter? warqadda yaa soo qoray. To whom was the letter addressed? warqadda yaa lagu soo cinwaanay. In which school is the writer? qoraaga iskuulkee buu ku jiraa ama dhigtaa. Who wrote a letter first? yaa ugu hor qoray qofku ugu horreeyay warqadda soo qoray kumuu ahaa Fatima or Ali? How is life at the writer's school? nolosha midka qoraaga ah sidee way iskuulkiisa. Why is electricity necessary? maxay korontadu daruuri ugu tahay ama laga maarmaan in a boarding school? iskuulada habeen iyo maalinba la dhigta oo aan laga bixin. qaarkood waa day bay ku geen qaarkoodna waa maba laga baxa boarding school. alif la kordhabe alif loos dhabe alif la goday